السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت سو dhawaado marka maanta casharkeena waxaa weeye myself marka hore waan akhrina marka labaadna waan turjuma insha Allah ta'ala ilaahay haduu yiraahdo. Marka casharka sidaan uu qoran yahay, my name is Hamdi, I am 10 years old, I study in class 6 in DP Primary School, I live in Mogadishu, I go to school every day, I have many friends at school, my hobbies are singing and painting. I like to plant trees. I have made a small garden at my home. I love to watch the trees, flowers and butterflies in my garden. Myself waxaa weeye nafsadeyda. I, myself. My name is Hamdi. My name is Hamdi. Magacayga waa Hamdi. I am 10 years old. Waxaan jiraa 10 sano. I study in class 6 in DP Primary School. I study waxaan bartaa in class 6 fasalka 6 in DP Primary School. Schoolka hoose ee DP. I live in Mogadishu. Waxaan ku noolahay Mogadishu. I go to school every day. I go to school every day. Waxaan tagaa iskuulka maalin kasta. Every day waxaa weeye maalin kasta. I have many friends at school. Waxaan leeyahay saaxiibo badan iskuulku. My hobbies are singing and painting. Hobbigaygu waxaa weeye inaan heeso iyo inaan wax rinjiyo. Singing waxaa waaye heesid, painting waxaa waaye rinjiyeyn. I also like to plant trees. Sida oo kale waxaan jeclahay inaan abuuro geedo. Trees waxaa waaye geedo. I have made a small garden at my home. Waxaan ku abuuray beer yar gurigeyna. I love to watch the trees. Waxaan jeclahay inaan daawado trees geedaha, flowers ubaxyada and butterflies baalbaleyda. Butterflies waxaa waaye bahasha markii biyaha meesha dhiiqada kale ama roob ku daa bahasha yarto bubuwayso tixsiga u kala in my garden beertida. Waad fahanteen aan filaa. Next marka casharka wuu sii socdaa. I live in a family of 4 members. My father, mother, sister and myself. My father works in a private firm or company and my mother is a home worker. My sister is studying in class 5. On weekends, my father takes us to the seashore or nearby bank. I read storybooks in my free time or help my mother in her household. Casharku wuu soo socday. I live in a family of 4 members. Waxaan la noolahay qoys ka kooban 4 qof ama 4 members. My father, aabbahay, mother, hooyaday, sister, walaashay and myself iyo nafsadeyda. My father works in a private firm. Aabbahay wuxuu ka shaqeeyaa company shaqsi ah. Private waa shay macnaha shaqsi u leeyahay. Firm hadaa maqasho waa company waa same. And my mother is a home worker. Hooyadayna waxaa weeye gurigayay ka shaqeysaa. My sister is studying in class 5. Walaashay waxay barataa fasalka 5. On weekends, maalmaha Sabtida Axadda, my father takes us. Aabbahay wuxuu na geeyaa to the seashore xeebta badda or ama nearby park ama meelaha cawska leh ama jardiinada cawska leh park. I read storybooks. Waxaan akhriyaa buugaagta sheekooyinka in my free times waqtigayga aan firaaqada leeyahay or ama help my household ama waxaan caawiyaa hooyaday shaqada guri ayaan ka caawiyaa. Casharka wuu noo soo dhamaaday marka keywords ereyada kala soo baxaynaa oo everyday, hobby, sing, paint, plant, tree, garden, watch, flower, private, weekend, near, seashore, help. Everyday waxaa waaye maalin kasto. Hobby waxaa ku faraxsan tahay. Sing waxaa waaye hees ama gabay. Paint waxaa waaye rinji. Plant abuurid ama geedo. Tree waa geed. Garden beer.
watch daawasho, flower ubax, private gees loo leeyahay shakhsi, weekend maalmaha isbuucu dhamaadkiisa, near u dhow, seashore xeebta, help caawin. marka cashirka waa kaas wixii macnaha uu ka dhigo comment kusoo qoraysaa insha Allah taala. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen insha Allah. waxaan noo balan cashirkaanama kii xiga bidin illaahi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.